بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهي باب مهد اسكاله عاوة ماشا سوكان كياني أنا مقعيق عبد الرحمن سعيد وحان كفر حسنا هاي عاوة إنا النقضو حديدية حالفة الصدنية اللي بقورة دا دولة ديان كسومالي دا وعاوة كقب صونتين مقالة ميلبون ونوجدنا حفلة هذا قروح بدن آديات بدن ما سنتين سيفي عن بالي ديكم مهد علين دونا بروجرام كان ينو باللابن دونا وحاينا لتشوغا كونسوليتكا ميلبورن سفارة إثيوبيا هي إن لتشوجا أو يكون عاوب مرتشرف ماشان كوا وحين لتشوجا قدومياشة جاليات كالصومالية وحين لتشوجا قدوميها جاليات الصومالية وحين لتشوجا مرتشرف كله أقوي هنو لنع هوينكا جالية شركة قبطي والله هذا دونا وحان كهر مرين ربا مركهره waxaan aad ugu mahadcelinayaa jaaliyadda Somali State Victoria magaalada Melbourne xafladda soo qaban qaabisay oo horeeyo gudoomiye Cabdullaahi isagan baa inta wixii ka dambeeyana u sii mahadcelin doona xafladeena qayb ka ah oo inaga qayb qaadan doona madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo khadka ku jira insha Allah taala darbiga cidlada ee cad ayuu soo fadhiisan doonaa waa tiknoolajiyada la gaaray ila ka faa'iideysano inkastoo Soomaalidu si kale uga faa'iideysatay oo la isku jiiray waxaynu isku qabnay isku adeegsanay laakiin waxa inoo sahlan inuu inagoon taaban karin laakiin is arkayna inuu halkan igala qayb qaato inta kadib waxaan idin kala dhaxbaxayaa adiga iyo shacab weynaha ku soo dhawow si fiicanna waa lagu maqlaa aad baad u maasantahay bismillaahi raxmaani raxiim وقرين وحان سلام يا تاجيدا دولة أستراليا ما أنت يسوتني مع سوتي إلى كلمة دارنا كيدا على حفلة سنة الجولة اللي صدرناها أساس كحلي ديال كنا على أساسين ما أنت الأساسي معلم من النمو معلم وهاي هالجن سوتي بي يعني هواينا مرة رسيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهكذا وعن سلامة يا قنصل الجيتاتشو وأدوار الجلسين السنة الجلتشو وحمد الله هاي كنتي آدي هذا النصح بالنساء كاريات دلدة شوكة وكوا هاي صح دت كذي يدوم كذي وبالما أنا وكلا يا لفتي كذا وادي ستين بالنور يكون مشيان يا لهجرة أيدت كذا كذا يجي إن الصوت مردان سبارتان وهو ذاكتان قلت يا أهل غرفة حولي والسود وينيا إن شاء الله تروح نوفر الضغطات بعض الصوب وإذا صار مال دير تشوتان هذانا قلب لنا كمان يدينا إن يسوق قالوا ويدين بعضنا وذكي أتشعلين يذكي أتشعلين كتكتين سعادة الدكتور بارتان يعني نحطه الجو قالوا حالته ذي شغله وحيد ترى وأقول إنه كل إنسان عنده يسوي فكانت بعدين سلامة لمانتي همبري يا الله سيدا لا سعتان ديغانكا لسه نقول هكذا عي بدل بلارن بدل كاسي وحان هو إن طما شعب وحي كبير وطن أنا طما يسترن أدوم بالواسطة والترجمية مرة لكن وحان هو هي وهو إن وحيعرف ربنا وحكومة كسر جاري ديغانكا حتى إلى المقل إن أمني الديار كتور هيسان الجريدة يحسلوني ذا يحقوق الإنسان كا يحرية الطاول كا يجنعسي حرطة يدمان حضارة صوب ربيع كتور هيسان مكتيريا تاس إلى هاي النوسي سيادية والنوسي كرديانا دلال كينا ولو بهاي دلال كنا ولو بهاي لكن هو قصي إسكاشي نكشفينه يا لو بهاي حكومة واحد ديار تاعي inay dadad geliso shaqooyinka xiriirka jaaliyadaha oo aan ka gaabinay waan ognahay ma aha inaan ognahay faa'iidada aan ka heli karno xiriirka noocaas ah iyo awoodda taalo qurbaha laakiin duruufihii shaqo ee nala kulmay iyo waxa laga yaabaa xagga fahamka laftiga anagu barnaamijyada oo hadda saan ugu baraarugsanahay aan ugu baraarugsanay inay keentay in xiriirkii loo baahnaa aan hore u bilaabin لكن هذا كده وبلابي دونا تيجي قوانوات تكون ديسينهين حاولت وفي عندها طبعا بلاد بالي هاي وغير هاي باهية شعب وبريهين
tabarta miisaaniyadeed dhaqaale ee taaban meesha way kooban tahay marka dowladooyin fara badan oo xagga maaragtay nolosha dadka ay jirayaan bishan hadda aan ku jirno waa bishii jiilaalka bishan iyo laba bilood soo socdaba waxaa suurtagal inaan maqashaan meelo badan oo biyadaamin looga baahan yahay oon uu ka jiro shacabkeedii uu sii badanaya uu tarmaya sidoo kale muxuu ahaa dadaalka dowladdu aad buu runtii u ballaaran yahay hase ahaatee mar walba baahiyaha jira ee dhanka waxbarashada iyo dhanka caafimaadka dhanka jidadka dhanka leydka iyagoo way sii badanayaan oo shacabka dhalanaya faraha badan intii hore ee la sameeyey kuma filaanayso marka howlahaasoo dhan baa runtii gacanta lagu hayaa waxaan ka codsanayaa inaad ugu taageertaan wixii talooyin la siisaan wixii gaabis aad ugu dhanishaan intaba diyaar baan nahay maanta cid qurbaha joogto oo ka walbahaarsan aragti ay ka dhibatay deegaanka in ama cid gudaha joogta loo dhibaateynayo ama iyaduba iyagu ay ku mudanayso ma jirto marka howlahaas maadaama sidaa yihiin inaad ka qayb qaadataan muxuu ahay kobcinta nolosha shacabkiina gaar ahaan xilligan abaarta lagu jiray jilaalka dadka qurba joogtii way sabaabulaan biyadaamin bay sameeyaan howlo tabaruc ay sameeyaan marka howlihii aad si beddelgelisaan oo weliba kusoo beegatay bishii rabadaan ee khayrka badnayd maaragtay ajirkii xasanaadka laysu qoriyey waxaad qaban kartaan inaad qabataan oo shacabkiina soo xusataan baan kula dardaarmayaa dalka Ethiopia isbedel baa ka dhacay isbedelka ka dhacay shacabka Soomaaliyeed runtii wax fara badan usoo kordhiyey colaadii uu ka dulqaaday faragelintii faraha badan ee siyaasadeed buu ka qaaday marka waxaan oran karnaa runtii isbedel bilow oo fiican baa jira kolba inagu sideen nidameena iyo hogaaminteenu ay noqoto ayay ku xidhnaan doontaa mustaqbalkeenu marka arrintaana waxaan isleeyahay jaaliyadu inay ku baraarugsanaadaan midnimada la xoojiyo waxyaabaha kala aragtidwanaanshaha inaan colaad loo qaadan meeshaad ku nooshiin Australia iyo meelaha kaleba waad aragtay siyaasiyiin habeenii maalin doodaya afkaaraha ku kala duwan doorashooyin qabsanaya isbedelaya laakiin danta guud ee caamka ee shacabka iyo waxa danaha shacabka muxuu ahay dalkooda kuma kala duwana marka inaga xadaarad noocaas inaan gaadhno ayaa loo baahan yahay annagu xaggana diyaar baan u nahay inaan soo dhaweyno cid walba oo naga fikir duwan waxaan diyaar u nahay inaan saaxada siyaasadda ballaarino fikrada ballaarino doodaha badino tartanada badino ujeedda intaa dhaafsiisan runtii meliya oo aan ahayn dadkanagu 100 sano iyo ku dhawaad dhibaatooyinkii dusha ka saarnaa ee dilka iyo xaqiraadda iyo barakaca iyo duudsiga iyo diintooda iyo maaragtay soomaalinimadooda waa duulaan lagu yahay inay kasoo bogsadaan oo soo kabtaan ka doonaansho ayaa xagga naga ka jira ilaahayna nala qabtana waa rajeynaynaa idinkana waa idin baahannahay intaasoo oran lahaa ku yareeyey ambassador gitaankoona waxaan leeyahay aad buu u mahadsan yahay kashaqeydalka xafladan waxaan aaminsanahay ku xidhnaanta noocaas ee idinka iyo safaaraddu inay wax fara badan idin fududaynayso isagana ay maaragtay wax u tarayso inuu maalgashi badan deegaanka usoo jiiday iyo dalkaba waan bogaadinayaa kasoo qaybgalkiisa intaasaan oran lahaa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدحوينه أدي أد بعض ما سنتهاي شعب رواق السلاميان عد كاغي مقال كاغو بكلين بهايين أد بنكو السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته